بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 862 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج طائفة من بني إسرائيل حتى أتوا مقبرة لهم من مقابرهم، فقالوا: لو صلينا ركعتين ودعونا الله عز وجل أن يخرج لنا رجلا ممن قد مات نسأله عن الموت. قال: ففعلوا، فبينما هم كذلك إذ أطلع رجل رأسه من قبر من تلك المقابر خلاسي بين عينيه أثر السجود، فقال: يا هؤلاء ما أردتم إلي؟ فقد مت منذ 100 سنة، فما سكنت عني حرارة الموت حتى كان الآن، فادعوا الله عز وجل لي يعيدني كما كنت. رواه الإمام أحمد في الزهد، والطحاوي في المشكل الآثار، وأبو بكر بن أبي شيبة في المصنف، والحديث صحيح. إخوة الإسلام والإيمان، maanta taariikhda islaamku ay tahay 27 bishii 10 shawaal sanadka 1447 islamarkaana waafaqsan 15 bishii afraad sanadka 2026. waxaanu ku jiray kitaabkeena ugu magacdaray almuntakhabu min saxiixi sunna nabawiya wa ziyaadaatuhu, qaybihiisii kala duwanaa, khaasatan mowduucii aan ugu magacdaray alqisasu annabawiyu thaabit aw saxiixu alqisas annabawiyi, qisooyinka saxiixa ee nabiga ka sugnaaday iyo wixii ku saabsan. ilaa 4 qisaanu soo qaadanay oo nebiyullaahi aadam ku saabsanaa arrimihiisa, abuuritaankiisa laga soo bilaabo ilaa iyo geeridiisa. 4 qiso oo ku saabsanayd baanu ka soo baxnay. qisooyinka ku soo xiga eenu qaadanayna maanta waxaa weeye ciwaankooda waa qisaskaas. khaasatan waxaan leenahay alqisatu daallatu calaa cajaa'ibi qudrati illaahi subxaanahu wa tacaala, qisada tusinaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala cajaa'ibta, qudradiisa cajaa'ibta iyo awoodihiisa ay leeyihiin ayay ku saabsan tahay. qisadan jaabir bin cabdillahi radi allahu tacaala canhu waa ardaba nabiga ka warinhaya. qisadan xadiidkan waxaa soo saaray ama qisadan alimaam axmed kitaabkiisa azuhd, kadalika alimaam abubakr ibn abi shayba kitaabkiisa almusanaf, sidoo kale waxaa soo saaray alimaam abu jacfar aطaxaawi kitaabkiisa mushkil aathaar, iyo keyrkoodba way soo saareen. markaasaa darteed ibnu xibbaan asna waa soo saaray. marka qisadan waa qiso saxiixa. sheekh albani raxmatullaahi calayhi silsila saxiixa ayuu ku saxiixinayaa, silsila saxiixa, raqamka xadiidka 2926. maaragtay dabcaadka laakiin way kala duwan yihiin, dabcooyinka qaarkoodna waxyaabo kale laga yaabaa inay raqam kale ku qoran yihiin. idan qisada waa qiso thaabita weeyaan. sidoo kale waxaa kaloo qisadan soo naqlinhaya ragga mucaasiriinta ah, ninka la yidhaahdo allahu naxariista doctor cumar sulaymaan maaragtay al-ashqar, ninka la yidhaahdo falastiinigaha ee 2012 ka dhintay, asna waxa weeyaan qisada wuu soo naqliyaa oo uu soo dhoweynhayaa. inta markaanu ka gudubna, qisadan waxay ku saabsan tahay maaragtay noolayn ilaahay qof dhintay uu dib u soo celiyey si dadka ugu waramo. waa qiso reer binu israa'iil ka dhexdhacday wey. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi kharajad, saxaabadiisi waa uga waramaya. kharajad waxaa baxday uu nabigu yihi daa'ifatun koox oo min bani israa'iila, reer banu israa'iil. dabcan waa koox waxaa ahayn zaahidiin ah oo maaragtay aakhiro iyo waxyaabaha ka dhacay aad agtooda ugu weynaayeen, oo marka had iyo jeer arrimaha maskaxdooda ku badnayd. daa'ifatun koox oo min bani israa'iil, reer banu israa'iil jamaaco ka mida ayaa baxeen xataa atow ilaa ay ka tagaan maqbaratan, meelo qubuuro oo lahum ayagu u sugnaado min maqaabirihim, qubuurihii ayagu lahaayeen ayay qayb ka mida ay tageen. xataa atow ilaa ay ka tagaan maqbaratan, qubuur oo lahum u sugnaado min maqaabirihim, qubuurahoodii meelahay isku xabaalahayeen meel ka mid ay tageen. faqaaluu waxay dheheen intay shireen: low sallaynaa haddaanu tukannay dheheen
ركعتين لبا ركعود هدان تكنو ودعونا الله إلهي أن نبرنو عز وجل أن يخرج لنا إنو نوصو صار رجلا نن ومن منطد كمذا قد مات الانتي نسأله سان ويدين عن الموت لكان أفضل أرنتا صفعنا الله يتبدا قال مركاسا وحنا ففعلوا ويسميين أرنكي بيسميين لبا ركعود بتكدين إلهي بيبريان إنو أصو صار قف وران أحضاض أوغا ورما موتكي يدباتذو إلهي ففعلوا ويسميين فبينما وقتهم أيقوا كذلك حالته يكسوا جيهين بريدي أي إلهي بريهيان وإلهي إله قف ماشا نغص وبيحي إذ أطلع وحا مارت وصوصار رجل وضدك قبورها كتيرية رأسه ومدحيسه من قبر بوكسو صار ومن تلك المقابر قبورها قبر كمذا نين مدحي كسو بحيي من كاسنا وحوها خلاسي ينبها مدعو عسين يمدو اسكو دحجراء خلاسي وحالي هذا اللون المختلط بين الأبيض والأسود وعدين مدو حيجينا وحالي هذا عدين مدو حيجينا وحلوتش هذا وقف عد أو ديق لوي قف عد أو ديق لوي قف مركو عسي هاي أو ديقنا أولاه هاي ومدو عمل مدو بوير حيجان وصيد عربته كلوي قف مركو ديقيس يمارتو وصلهاينا وكوا عد كزائد كوراشكي كوا آذو عرعد عدين كوضا أشقر كنقون هايوي إذن خلاسي ويهي مدو عدين مدو حيجين بين عينيه لبديس إن رضحضوضا أثر السجود باكم موقت لبديس إن رضحضوضا السجود أثار تيدا وقف مسلمة وتكنشر إنو هابي كتو سنيسا فقال مركاسا وحوجي سيقبا بحضي هذا لا صدون هذا يا هؤلاء كواسو ما أردتم إلي أرمح هذه قربتان أنيقا ما أردتم محادون إيسان إلي أني محادي قربتان فقد مت وان دنتبولي منذ 100 سنة بقول سنة وقت اللي قد شوغان قيريودون دنتبولي وقبرق اللي يسوق لي محادي قربتان هدنا مع ذلك فما سكنت محسلين بولي عني أنا حقيقة حرارة الموت موت مركي نفط يقب حيث سكرات كي قبت حنون كيسي يقمدقين بولي أو مارتي كما قبوبين حتى كان الآن إلى الآن وقت أنا الله الله يا لقسوا قالوا مركي النفط يقب حيث حنون كي قبت سكرات الموت كحنون كيسي إلى هدو إحياه فادعوا الله يبري عز وجل اللي أنيقا يعيدني إنه يعليو كما كنت سانها والسكرات الموت ككهر سيدانا هاي حالة دايدو أي في عناد إنه إلهي دب يعليه إلهي يبريا كدبنا قبرك بو سيدا أقول نقضي إخوة الإسلام والإيمان وقصة عجيبة أولا قصة وحين تصنيسا قدرة الله سبحانه وتعالى أود الله سبحانه وتعالى قفل انتي إنه دب أسعلي هذا القرآن كانوا نورش يغير نصوص إنه قيامة اللي سيسونه وليسين هاي وقف دب له أسعلي ولبا محكمة الله صاري تايضو وان رميسان هاي sidoo kale inuu qofkii dhintay ba qabriga laga soo saaro dadkii u waramo waa awoodda Ilaahay subhanahu wa ta'ala sidoo kale nimanka reer banu Israa'iil ayaa maartay iyo bini aadamku dhan ba loogu sheegaya sakaratul maut dhibaatada uu leeyahay ila cadaabul qabr buu noqonaya sakaratul maut iyo hayatul barzakhiya oo qabrigu qofku ku nooli ikhwata al-islam wal iimaan runtii qisadan waa qisa aad iyo aad cabsi u leh قصة آدي عبسي أولى ويان قصة نورتا waxay ku tusinaysaa nimanka reer banu Israa'iil qaabkay u fikireen reer banu Israa'iil wax ayna ku fikirin male nabi ilaahi Muuse waxay dhahay ilaahay na tusi bay dhahan ilaahay han na tusi bay dhahan wax ayna ku fikirin male waxa kamid ah waxay ku fikireen inay dhahan intaan qubuurahan tagno waliba sida ka muuqata dad caabidiin oo fiican bihayeen maxay yeelay ducadooda ilaahay baa aqbalay markaaba waxyaabay ku fikireen marka qisadan baa kamid ah marka aakhiro iyo qiyaamada iyo shaanigeeda iyo xaaladahaas raggan agtooda ku weyna marka waxyaabay ku fikireen ba waxa kamid ah war haddaan tagnay dhahan oo qubuuraheenan qayb kamid ah aanu tagno oo laba ragcadood tukanay dhahan oo fiirso halka waxa laga qaadanayaa markaad rabtay inaad ilaahay baridi laba ragcadood tuko markaad rabtay inaad ilaahay baridi laba ragcadood tuko هيا الأعماش إلهي لو قد وهذا واحد أو قيمة بدن والصلاة وي أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد وي وقت وقفك بين آدم إلهي أو قد وان بدن يا مسلم ومركو سجود سنة هاي وي مركا فاجتهدوا فيها مركا أما فاقدروا فيها الدعاء
ducada badiyuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. marka wuxuu ilaahay waafajiyey, waxay dhaheen 2 ragcadood aan tukanno ilaahayna aan barina. marka idan acmaasha ilaahay loogu dhowaan badan yahay waxaa weeyaan salaada wey. halka waxaa kaloon ka qaadanaynaa reer banu israa'iil inay tukan jireen, laakiin salaadeenna iyo tooda inay kala duwan tahay baa dhici karta, oo kala duwanaayeen oo waxyaabo fara badan ku kala, ama xagga cadadka, ama xagga awqaadaha, ama xagga dahaaro qaadashada, ama xagga qiblada, waxyaabo badan inay ku kala duwanaayeen baa dhici karta, laakiin way tukan jireen oo salaad baa waajib ku ahayd. idan waxay dhaheen marka 2 ragcadood haddaan tukanno oon ilaahay barino, halkaas inaad markii culays ku soo fuulo ama aad ilaahay rabtid inaad barid adoo aad culays jirin, aad rabtid inaad 2 ragcadood tukatid, waxaa weeyaan waa shay laga qaadanayo oo qiimo badan wey. maxaa yeelay salaatul istikhaara maxaa loo jideeyey? waa shay aad rabtid inaad samaysi wey, ood ilaahay baryeysi inuu ilaahay. ganacsi baad rabtaa inaad shay mubaaxa, ganacsi baad rabtaa inaad samaysi, guur baad rabtaa inaad guursato ruux mucayana, safar baad rabtaa inaad aadi, iyo wixii lamidka, dad baad rabtaa inaad la shirkowdi, waxyaabo noocaas oo dhan inaad horta 2 ragcadood tukato oo salaatul istikhaara la yihahdo, kadibna ilaahay aad barido oo tiraahdo ilaahu shayga khayr hadduu ii yahay ina ii sahal, haddii kalena ilaahu iga leexi. idan waa iyadaba waxaa weeyaan maaragtay waa arrin mashruuca wey. idan 2 ragcadood kaas 2 ragcadood bay tukadeen, kadibna ilaahay bay baryeen. waxaa kaloo laga qaadanayaa istijaabatu ducaa, surcatu maaragtay ilaahay ajiibitaankiisa degdega durba nimanka u aqbalay, laxadaadba wuu ku aqbalay. 2 ragcadood bay tukadeen, ilaahay bay baryeen, oo marka maxay leeyihiin? inuu qabrigan qof nooga soo saaro, ulajeedadaanaduna inaan bal qofkaas ilaana aakhire lama gaadhin, waa barzakhi, xayaatul barzakhiya, oo 3 nolol baa jirta: xayaatu dunya iyo xayaatul barzakhiya iyo xayaatul aakhira ama xayaatul janna. yani xayaatu dunya waa midan aan ku nool lahay, xayaatul barzakhna waa markuu qofku dhinto qabriga la geliyo ilaa bacthiga la iska soo saaray, inta u dhaxaysa nolol wey, ka duwanteena iyo midda qiyaamada ka duwan wey. oo qofkii xunna hadduu xumaana waa la cadaabkii buu ku jirahayaa, hadduu fiicnaana jannadii buu maaragtay raxmaddii buu ku jirahayaa. idan markuu inuu ilaahay qof noo soo saaro, qofkaana aan weydiino geerida iyo xanuunka uu leedahay iyo wixii ku saabsan qabriga iyo hawlihiisa, arrinkii bay ku dhaqaaqeen. 2 ragcadood bay tukadeen, ilaahay bay markaa baryeen, fafacaluu, arrinkii bay sameeyeen buu nabigu yidhi. waqti maaragtay fabaynamaa hum kadalik, xaalka ay ku sugan yihiin oo ilaahay ay baryahayaan oo qubuurihii ay dhex tagaan ama dul fadhiyaan oo ay baryahayaan ilaahay, id dalaca lama dhihina alaca, waa ficil mucadda laga dhigay. wuxuu soo saaray rajulun baa ra'sahu, madaxiisa, min qabrin, oo min tilka almaqaabir ka soo saaray. nin baa madaxii fag ka soo siiyey qubuurihii. cajiibka, waxaa la yaab leh geesinimadka nimanka reer banu israiil, maya cararin. innaga adoo qubuur ag marhay hadduu qof ka soo boodo ka waran qabriga ka soo dhexbaxo, yani inaad su-aalo weydiisay iska daaya, waxaan u malaynaya hataa kaba haaday waxo dhan waad ka wada carar lahayd, geedahana waad jiiri lahayd. laakiin reer banu israa'iil niman cajiiba wey, mabayna cararine. ninkii baa qabriga madaxa ka soo saaray. marka id alaca waxaa soo saaray rajulun nin ra'sahu, madaxiisa, min qabrin buu ka soo saaro, min tilka almaqaabir. waxaa kaloo halkaa laga qaadanaya saan inagu qubuuraha iskugu xabaallo bay reer banu israa'iilla qubuuraha iskugu xabaalaan, oo meelo khaas oo la isku xabaala ay leeyihin. marka ninkii buu nabiga noo sharxaya midabkiisa, khilaasiyun weeyaan buu. khilaasi waa qof cad oo maarata caddiin madow xiga wey, waa mukhallad weeyaan, caddiin iyo madow isku jira wey. waa caddiin dhiigla weeyaan, oo maarata sida carabta kale noqonaya wey. caddiinka aan dhiiggiisu muuqaninna waa midka waydka zaa'idka ah wey, ood mooda qof baras ku dhacday. ka laakiin dhiiggiisana dhiig madowlana marka midab wuxuu noqonayaa maarata quruxsan buu noqonayaa. khilaasiyun ah nin noocaa midabkiisu iyo caddiin madow xiga, ama caddiin iyo madow isku dhex jira. waxaa kaloo nabiga uu ku sheegay ninka inuu nin ahaa ahlu salaada, bayna caynayhi atharu sujuud, labadiisa indhood dhexdoodana sujuudi baa ka muuqatay oo ku taalay, aahaarteedii, sujuudda aahaarteedii. intaas ninku markuu saa madax usoo nabiga tilmaanta ka bixiyey, ninkii baaba hadlay, iyagoona markaa ninkii baa hadlay, su-aaltooda meeshan lama sheegin. ninkii baa hadlay oo wuxuu yidhi yaa haaulaai maa aradtum ilaya, war maxaad iga rabtaan? war dadkiinanow waxaad iga rabtaan maxay tahay? hadalkii buu sii waday oo wuxuu yidhi faqad midtu waan dhintay mundu 100 sanatin, 100 sano waqti laga joogaan dhintay oo qabrigan la igeliya. hal qarni baa ka soo wareegtay,
boqol sano weeye. haddaba waa yahay boqolkaas sano maalinkii nafti laga qaadahayey sakaraatulmowtka xanuunka uu lahaa iyo dhibaatadiisii ayuu ooga warramay oo wax kale lagu darinba. muxuu yidhi famaa sakanad ma xasilin, igama dhammaanin wey, igama degin weli, mana qaboobin canii ani xaggayga xaraaratulmowti, geerida xaraaradeedii iyo kulaylkeedii. nafta markii la qaadayo khatar weeye. markii geeridu i qabatay sakaraatulmowtkii xanuunkiisi iyo xaraaradiisii kulaylkeedii igama degin buu yidhi, igama dhammaanin xataa kaana alaan, ila alaan aan idinla hadlahayo xanuunkii sakaraatulmowtka nafti laga saaray baa ilaa yowmina haada hayuu. bal qiyaaso ikhwatii fillaah, naftu markay kaa baxayso xanuunka ay leedahay 100 sanoo kasoo wareegtay weli ninka xanuunkii baa haya. intaa waxa usii dheer qabrigii, su-aalihii iyo howlahaasoo dhan baa usii dheer. idan meeshaasa ikhwatii fillaah na sugayso khatar ah. markaasaa wuxuu yidhi fadcullah, ayagii buu ka codsadayba, ayagii waraysi rabeen baa dib loogu soo fagaagsaday. fadcullaaha caza wajalla lii, ilaahay ii barya yuciidunii, inuu iceliyo kamaa kuntu saan ahaa. sakaraatulmowtka intuusa qabanin ka hor saa xaaladayda ahayd ee deganaanshahdii iyo qabowgii sidaan ahaa, inuu ilaahay dib iigu celiyo oo xanuunkani waxaan iga saaro, ilaahay ii baryo, ilaahay ii baryo. idan ikhwatii fillaahi, marka runtii waa arrin cajiiba. culimmadu marka waxay dhahaan almowtu wa shiddatuhu, geerida iyo dhibaatada ay leedahay, iyo walqabru iyo wadaqdatuhu, qabriga iyo cidhiidhiga iyo isu imaanshaha uu leeyahay, iyo assu'aalu iyo wa shiddatuhu, su-aasha qabriga iyo dhibaatada ay leedahay, masiirun meel la mari oo loo noqon hayo weeye, maxtuumun la waajibiyey, katabahu llahu alla uu u qoray calaa kulli fardin min afraadi bani aadam. idan sawaaun kaana saalixan aw daalixan, ama ha ahaado qof saalixa ama yuusa ahaanin, ama qof xun ha ahaado, ama nabi ha ahaado ama yuusa ahaanin, ama rasuul ha ahaado ama yuusa ahaanin wey. inay geerida mowdka iyo xanuunka uu leeyahay, qabriga iyo cidhiidhiga iyo mugdiga uu leeyahay, su-aasha iyo dhibaatada ay leedahay qabriga dhexdiisa, waa arrin masiir ah oo wax fardi kasta oo bini aadama ilaahay uu ku uu ku qoray wey inuu maro intaaba inuu marahayo. wakii nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam, qabrigu wuxuu leeyahay daqda uu leeyahay, bimacnaa isu imaansho iyo cidhiidhi. qof uun hadduu ka nabadgeli lahaa, low najaa axadun lanajaa sacd binu mucaad, sacd binu mucaad baa ka nabadgeli lahaa. sacd waa ninkii ihtaza carshu raxmaani limowti sacd, uu nabigu carshiga ilaahay baa u dhaqdhaqaaqa ama gilgishay saxaabiga geeridiisa, qiimaha uu leeyahay. wamaca daalika qabrigii labadiisa daan inay su timaado ninkaa kama badbaadin. waana ninka carshiga u dhaqaaqay, waana ninka 70,000 oo malag ay u soo degeen janaazadiisa inay wax kala tukadaan oo ka sogotiyaan janaazadiisa qaadaan. 70,000 oo malag oo weligood soo degin baa u soo degay maalinka uu ninkaa geeriyooday. ninkii noocaasa baa leeyahay qabriga cidhiidhigiisa kama nabadgelin, qabriga labada dhinac inuu isugu yimaado. idan shiddatul markaa qabriga iyo dhibaatada uu leeyahay, su-aalaha iyo dhibaatada ay leedahay, geerida iyo xaraarada ay leedahay, bini aadam nafar kasta wuu marahayaa, noocaad doonti ahow. arrintaa maskaxdeena inay ku weynaato ayaa loo baahan yahay ikhwatii fillaah. qiso cajiiba weeyaan. waxaa kaloo qisadan ku tusinaysa awoodda ilaahay, awoodda ilaahay. geedahan iyo jamaadaadkan ilaahay wuu ka hadlin. qaaluu andaqana allahu aladii andaqa kula shay. yani wax ilaahay awood, yani koonkan oo dhan ilaahay baa maamula, awaamir rabbaani ay ku shaqeeyaan, tasarufkooda iyo maamulkooda, milkiyadooda iyo ilaahay baa iska leh. idan qabrigii ninkaa 100 sano ku jiray baa hal mar madaxa soo bixiyey, nafti baa lagu soo celiyey, waraysi buu dhiibay. dhibaatada ay sakaraatulmowtku leeyahay iyo xanuunkiisa iyo 100 sano uu ninkan hayay, warbixintii oo dhan buu dhiibay, iyo muddaduu meeshan ku jiray warbixin weyn buu dhiibay iyo digniin buu bixiyey. macnaheeda meesha idinka soo horeysa waa midaas wey. ama banu israa'iil ahow, ama soomaali ahow, ama jinsiyad kale ahow, meeshaasaa kaa soo horeysa. meesha xaraarada mowdkaasaa ku sugahaya iyo xaraarada uu leeyahay, qabrigaasaa ku sugahaya. ninkaa culaysku uu sheegay baana wada sugaya. ilaahay subxaana wa tacaala ha noo sahlo. ikhwatii fil, innaguna maanta maxaan ku mashquulsannahay
كان قبا كان سيدا كان دع كرسي كان كريح كان كلاكو كان وهكذا شيلين كان كبطسو هبل حق الريح وحا قبيالات بان كدمان لا انا هي ور إلهي سبحانه وتعالى ونقنو إلهي سبحانه وتعالى وتوبت كانو إلهي وحن ويديسنا بأسماء الحسنى وصفاته العلى إنه ما ارتحق نفسه وين رزاق حق راعتان كيسا هل مرمى حديث كلفظ كيسا آخرين هيا الحديث 862 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج طائفة من بني إسرائيل حتى أتوا مقبرة لهم من مقابرهم فقالوا لو صلينا ركعتين ودعونا الله عز وجل أن يخرج لنا رجلا ممن قد مات نسأله عن الموت قال ففعلوا فبينما هم كذلك إذ أطلع الرجل رأسه من قبر من تلك المقابر خلاسي بين عينيه أثر السجود فقال يا هؤلاء ما أردتم إلي فقد مت منذ 100 سنة فما سكنت عني حرارة الموت حتى كان الآن فادعوا الله عز وجل لي يعيدني كما كنت رواه أحمد والطحاوي وأبو بكر بن أبي شيبة وابن حبان والحديث صحيح. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.